Sannadii 1994, qowmiyadda Hutu-ga ah oo u badnayd waddanka Bariga Afrika ku yaala ee Rwanda ayaa waxa ay dileen dad ugu yaraan lagu qiyaasay 800,000 oo qof, kuwaasi oo u badnaa dadka laga tirada badan yahay ee la yiraahdo Tutsiga. Dilkana waxa uu ka bilowday magaaladii caasimadda ahayd ee dalka Rwanda, kadibna waxa uu si xawli ah oo lama filaan ah ugu faafay dhammaan inta kaleete ee dalka. Dilka ayaa waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah madaxdii dowladda iyo sidoo kaleete saraakiishii militariga ee u badnaa Hutu-ga, ayagoo weerar uu ku qaaday qof walba qofkii u dhowaa ee deriskiisa ahaa. Markii jabhaddii ay hogaaminayeen Tutsiga ay soo gaarayeen magaalada caasimadda ah bishii Julaay 1994, dilka waxa uuba marayay 100,000 oo dadkii reer Rwanda ah, kuwaasi oo ay u badnaayeen Tutsiga. Sidoo kalena waxaa qaxay 2 milyan oo qaxooti ah oo u cararay wadamada deriska ah, kuwaasi oo ka cararayay dilkii baahsanaa ee ay geysanayeen ciidamadii Rwanda. Taasina waxa ay sababtay musiibo qaran oo dalkaasi ku habsatay. Daawade, haddii aad ka hesho taariikhaha, fadlan like saar si aynu u ogaano. Mahadsanid. Waddankani wax soo saarka beeraha qaniga ku ah ee ku yaala Bariga Afrika ayaa caqabadiisa waxa ay bilaabatay sannadyadii 1990-yadii, waxa uuna markaasi ka mid ahaa mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ku yaala ee kobaciisa dhaqaale iyo sidoo kaleete heerka tiradiisa dadka ay kor u sii kacaysay, kaasi oo dadkiisa ugu badan ay ahaayeen Hutu, halka ay soo raacdo qowmiyadda kale ee la yiraahdo Tutsiga. Boqolkiiba 85 dadka waddankaasi ku nool waxa ay ahaayeen Hutu, halka inta soo hartina ay kala ahaayeen Tutsi iyo sidoo kaleete Bajami. Waddankani oo markiisii hore gacanta ugu jiray dowladda Jarmalka intii u dhaxaysay 1897 ilaa 1918 ayaa waxaa loo soo wareejiyay inay xukunto waddanka Belgium kadib qaramada midoobay markii ay ku amartay Jarmalka inuu halkaas isaga baxa dagaalkii koowaad ee adduunka kadib. Sidaasina waddanka Rwanda waxa uu ku noqday mid hoos tagaya waddanka Belgium. Tan iyo inta ay qaramada midoobay war kaga soo saaraysa lagu wareejinaya xukunka dalkaasi dadka iska leh. Laakiin musiibada uu horseeday xukunkii Belgiumka ayaa waxa ay ahayd in dadkii tirada yaraa ee waddankaasi ku noolaa ee Tutsiga ahaa uu gacan siiyey si ay u laayaan Hutugii tirada badnaa ee waddankaasi ku noolaa. Taasina waxa ay sababtay in uur ku taalle iyo cuqdad aanan dhammaanaynin dadkii Hutuga ahaa ay u qaadeen Tutsiga, kuwaasi oo markaasi ay ku eedeynayeen in Belgiumka ay garab ka helayaan dhammaan dadkii ku noolaa waddankaasina ay ka gacan bidixeeyeen. Dadkii Hutuga ahaa ee ku noolaa waddanka ayaa kadib waxa ay sameeyeen kacdoon, kaasi oo dhacay 1959 sababayna in 330,000 oo Tutsi ah ay ka cararaan dalka una cararaan wadamada jaarka ah, taasi oo kasii dhigtay dadkii Tutsiga ahaa ee awalba tiradooda ay aadka u yaray kuwa kasii hoos maray tiradii markii hore ay kaga noolaayeen waddankaasi. Sidoo kale jabhaddii Hutugii ayaa waxa ay dhammaan dalkaasi ka mamnuucday xukunkii boqortooyada ahaa ee ay lahaayeen dadkii Tutsiga ahaa. Sidaasna waxaa loogu dhawaaqay in wax dambe oo xukun ah dadka Tutsiga aysan ku lahayn waddanka Rwanda. Sanadii xigtay ee 1960 ayaa qaramada midoobay waxa ay go'aansatay in talada laga wareejiyo waddankii Belgiumka loona dhiiba dadkii reer Rwanda. Diyaargarow iyo sidoo kaleete kala wareejin kadib ayaa waxaa dalkii Belgium uu ku guuleystay in talada dalka Rwanda uu ku wareejiyo dadkii lahaa. Laakiin taasi wax xal ah ma aynan keenin oo waxa ay sii horisay colaadii u dhaxaysay Tutsiga iyo Hutuga, waxaana halkaasi ka dhismay dowlad militari ah oo uu hogaaminayay General Juvenal Habyarimana oo ahaa nin ka soo jeeda qowmiyadda Hutuga, iyadoo dhanka kalena dadkii Tutsiga ahaa ay sii wadeen qixii ay ka cararayeen waddanka Rwanda. Sanadii 1978 ayaa Habyarimana waxa uu bedelay dastuurkii dalkaasi, waxa uuna ka dhigay mid shacabka gacantooda lagu soo celiyo. Waxa uu u soo istaagay madaxtinimo waxaana la doortay sanadii 1983, isagoo haddana mar labaad istaagay sanadii 1988, markaasi oo uu ahaa ninka keliya ee tartankaasi ka qayb galay. sidaana waxa uu ku noqday madaxweynihii dalka. sanadii 1990 jabhaddii ay hogaaminayeen qaxootigii reer Tutsi ee ka cararay waddanka ayaa dib ugu soo laabtay waddanka Rwanda, ayagoo weerar ka soo qaaday waddanka deriska ah ee Uganda.
Habyarimana oo ahaa markaasi madaxweynihii xukumayay dalkaasi waxa uu ku eedeeyay qoomiyadda Tutsiga ah in ay dalkaasi qas iyo qalalaase u horseedeen sidaana waxa uu ku dilay dad fara badan intii u dhaxaysay 1990 ilaa 1991 markaasi oo saraakiisha dawladda ay ka qayb qaateen dilka boqolaal ka tirsan dadkii Tutsiga ahaa ee ku harsanaa waddanka laakiin sanadii 1992 ayaa waxa ay kala saxiixdeen jabhaddii ay hogaaminayeen dadkii qaxootiga ahaa ee reer Tutsi iyo dawladdii uu hogaaminayay Habyarimana heshiis kumeel gaar ah oo ogolaanaya in la dhiso dawlad kumeel gaar ah heshiiskaasi ayaa lagu kala saxiixday magaalada Arusha ee dalka Tanzania kaasi oo dhammaan dhinacyada ugu baaqayay in ay hubka iska dhigaan lana sameeyo dawlad kumeel gaar ah oo loo wada dhan yahay heshiiskaasi waxa uu ka careysiiyay dadkii xagjirka ahaa ee Hutuga ahaa taasina waxa ay sababtay sanadii 1994 bishii Abriil 6deedii in diyaarad ay saarnaayeen madaxweynihii dalka Rwanda Habyarimana iyo sidoo kale madaxweynihii dalka Burundi Cyprien Ntaryamira lagu soo rido magaalada caasimadda ah ee dalka Rwanda ee Kigali taasi oo sababtay dhimashadii labadii madaxweyne kadibna qarxisay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay saacad kadib markii la riday diyaaradii waday madaxweynihii dalka Rwanda Habyarimana waxa ay bilaabeen ciidamadii ilaalada madaxtooyada iyo sidoo kale jabhaddii ay hogaaminaysay Hutuga inay bilaabaan dilkii dadkii Tutsiga ahaa kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay soo rideen diyaaradii waday madaxweynihii Habyarimana dilkaasi oo ka bilowday magaalada Kigali ayaa waxa uu noqday mid taariikh lama iloobaan ah ku reebtay dalkaasi sidoo kale dadka la dilay ayaa waxa ku jiray dad Hutu ah oo lagu eedeynayay inay gacan saar la lahaayeen qoomiyadda Tutsiga ah waxa ka mid ahaa dadkii lagu dilay xasuuqaasi ra'iisul wasaarihii dalkaasi Agathe Uwilingiyimana iyo 10 ka mid ah nabad ilaaliyayaashii ka soo jeeday waddanka Belgium dilkaasi ayaa waxa uu dhacay 7 bishii Abriil maalin kadib markii la soo riday diyaaradii waday labadii madaxweyne ee Rwanda iyo Burundi dilkii ayaa waxa uu noqday mid faraha ka sii baxay maalinta ka sii dambeysana ku sii faafayay qaybo badan oo dalkaasi ka tirsan 2 maalin kadib markii la dilay 10kii nabad ilaaliye ee ka soo jeeday Belgium dawladda Belgium waxa ay go'aansatay inay dhammaan ciidamadeeda ay ka baxsato dalka Rwanda ayadoo taasi ay qasabtay in ciidamadii ka socday qaramada midoobay lagu amro inay difaac galaan oo ay sameynin wax kala dhexgal ah oo lagu istaajinaya dadkii lagu laynayay halkaasi qoomiyadii Tutsiga ahayd ee laga tiro badnaa oo ku noolaa koonfurta waddanka Rwanda ayaa iyagana waxa ay qaateen go'aan ah inay isdifaacaan isbuucyo gudahooda ayaa waxa lagu dilay dad fara badan oo markaasi cadadooda aanan la aqoonin dalkina waxa uu noqday mid qalalaase iyo sidoo kale kala dambeyn la'aan ay u horseeday in dhiig aanan la joojin karin uu daato jabhaddii Tutsiga oo dib u soo rogaal celisay ayaa iyagana waxa ay bilaabeen dhankooda inay sidaasi oo kale ay beegsadaan dadkii Hutuga ahaa ee ku dhex noolaa deegaanada ay deganaayeen Tutsiga taasi ayaa waxa ay sababtay dagaalkii sokeeye ee faraha looga gubtay ee ka qarxay waddanka Rwanda muddo bilooyin gudahooda ah ayaa waxa ay ku qasbanaadeen 2 milyan oo dadkii Hutuga ahaa sidaasi oo kale inay isaga cararaan iyagana dalka Rwanda ayagoo u kala cararay wadamada Burundi iyo Congo dagaal qaatay 100 maalmood oo ay ku dhinteen in ka badan 800 oo kun oo reer Rwanda ah oo ay u badan yihiin dadka Tutsiga ah ayaa waxa uu soo afjaray dagaalkii u dhaxeeyay falaagadii Tutsiga ahayd iyo sidoo kale raggii talada hayay ee ka soo jeeday Hutuga markii dambana guusha waxa ay raacday falaagadii ka soo horjeeday xukunkii Hutuga ahaa sidaasina waxa dalka taladiisa gacanta ugu gashay Tutsigii markii hore laga tiro badnaa waxaa la aasaasay dawlad ku meel gaar ah oo ay u badan yihiin dadka reer Tutsi isla markaana waxaa la mamnuucay dhammaan wax walba oo ay ku lug lahaayeen dadka Hutuga ah oo uu ka mid yahay xisbigii uu hogaaminayay madaxweynihii la dilay ee Habyarimana ee lagu magacaabi jiray MRMD Party ayadoo talada dalka uu qabtay madaxweynaha hadda la yiraahdo Paul Kagame oo ka soo jeeda Tutsiga dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Abriil 1994 waxa ay go'aansadeen dhammaan inay kala baxdo dalkaasi ciidamadeeda nabad sugidda ahaa ee halkaasi ku sugnaa
isla sanadkaasi 1994 bishii Oktoobar ayaa waxaa la sameeyay maxkamadda la yiraahdo International Criminal Tribunal for Rwanda oo magaceeda loo soo gaabiyo ICTR oo laga dhisay dalka Uganda, taasi oo loogu talagalay dadkii xasuuqa ka geystay dalka Rwanda in lagu maxkamadeeyo lana horkeeno cadaaladda. maxkamadani ayaa waxa ay xiriir la leedahay oo ay hoos tagtaa maxkamadda caalamiga ah ee Hague. sanadii 1995 ICTR waxa ay bilowday in ay magacowdo oo sidoo kaleete ay sheegto dadkii ka dambeeyay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda oo ay ka mid ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa qowmiyadda Hutuga ah, kuwaasi oo bilaabay in ay dilaan dadka Tutsiga ah. ilaa maanta la joogo weli waxaa socdo maxkamadeyntii dadkii ka dambeeyay xasuuqii dalka Rwanda oo lagu qiyaasay in ku dhow 1 milyan oo qof inay ku dhinteen. daawadayaal, intaasi waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii koobnayd ee dadkii ku dhawaa 1 milyan ah ee lagu laayay dalka Rwanda muddo 100 maalin gudaheeda ah. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waanigoo inkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.